aadi aad u mahadsan tahay maanta ugu soo booqdeen dalka Muqdisho Somalia UNEP hay'adda loo yaqaano United Nations Environmental Programka qofka ugu sareysa maanta noogu imaatay dalka Soomaaliya oo ku soo booqatay maanta dalkiina aad farxad noo tahay waqti dheer suugeen inaan ugu soo booqato dalka Soomaaliya xaaladda arrimaha deegaanka isbedelka cimilada nagala soo qayb qaato oo la socoto xaaladda Soomaaliya ku sugan tahay arrimaha deegaanka isbedelka cimilada maanta booqasho ku imaatay dalka Soomaaliya eena soo aragtay wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada kadibna xaaladda Soomaaliya oo qiimeysay warbixin guudna laga siiyay kadibna ra'iisul wasaaraha xigeenka mudane Saalax halkan ugu soo booqatay golaha wasiirada iyo wasiiro iyo agaasimayaal ila taliyaasha oo u imaatay discussion dheer iyo doodo badan ka galnay arrimaha waxqabadka loogu qaban lahaa arrimaha deegaanka isbedelka cimilada. So it's a great pleasure to be here in Somalia today. We've had very good meetings. I have to thank you, Madam Minister. Of course, the round table that we had with ministers under the chairmanship of the Deputy Prime Minister was very significant. Discussing climate change, discussing the impact on climate change on Somalia, a country that has done nothing to contribute to climate change, but that is suffering great shocks in terms of drought and floods. We also discussed how we, from the United Nations Environment Programme, an organization I'm proud to head, can support and work with Madam Minister, with the country, to support a step up in environmental management as this new ministry, now 2 years into its existence, is really taking the lead on ensuring that the country gets its fair share of climate finance as well as steps up on biodiversity and pollution. So thank you very much, Madam Minister. On this very important roundtable in which the different government institutions of Somalia, the ministries and agencies will have a very constructive and progressive roundtable discussions with the UNEP and other UN agencies at the table, the leadership, so that we can chart our path towards meaningful engagement and collaboration on different aspects of preserving the environment, coping with climate change, pollution, and other effects, the triple planetary effects that affect the state of affairs in places like Somalia particularly. So this would be a rather less formal interaction where we exchange ideas and take account of the prevailing realities in Somalia, the trajectory that we are going through as a state and society vis-a-vis our environment and our natural habitat. kusoo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga, Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan. Hadday ahaan lahayd musalsalada Hindiga, Turkida ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagu turjumay. waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid. History is what it would be. iyo waliba tifiyada Soomaalida dhamaantood. kasoo degso dooqaaga oo daawo bila internet. rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena. caawin 24 saac 7 maalin ah. degso muuqaalka aad ka heshid. HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha. waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga, mobilkaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga. haddaba ha moogan qanciyaha bulshada oo booqable store-ka kuna qor qanciye. qanciye aniga way qanciyay adiguna ma ku qanciyay.